kulantii waxaan wanaagsan daawadayaal mar kale isu soo noqod wanaagsan warbaahinta tooska ah ee arrimaha doorashooyinka Soomaaliland ee MMTV iyo stuudiyaha dhexe ee magaalada Hargeysa ayaan toos kala soo hadlayaa waxa sugaysan macluumaad ku saabsan halka uu marayo nidaamka tirinta ama hubinta ee gobolka Maroodijeex saxaafad badan ayaa ku sugan xarunta hubinta ee lagu hubinayo codadka degmada Hargeysa waxa sidoo kale goobtaasi ku sugan saraakiisha gudiga doorashooyinka saraakiisha xisbiyada qaranka oo dhamaantoodba hawshaasi isla hubinaya haddaba halkee wax marayaan imise cod ayaa la hubiyay sidee tiradu u socotaa arrimaha oo dhan waxa warbaahinta halkaasi kula hadlay daqiiqadihii la soo dhaafay Ismaaciil Aadan Cismaan Ismaaciil Yare oo uga warramay warbaahinta sida hawshu u socoto degmada Hargeysa Guulad Cunaabi ayaa bilaabaya Ismaaciil Yare oo ka tirsan mas'uuliyiinta xisbiga mucaaradka ah ee wadani u qaabilsan tirinta codadka komishanka doorashooyinka qaranka ayaa waxa uu ka warbixiyay halka ay marayso tirinta komishanka doorashooyinka ee golayaasha deegaanka ee gobolka Maroodijeex isagoo saxaafadda kula hadlay xarunta komishanka doorashooyinka ee gobolka Maroodijeex waxa uu yiri waad arkaysaan saacadu waxa weeyaan 12 iyo 13 daqiiqadood la imikaanu ka soo baxnay goobtii idinku had iyo jeer waxa tiraahdaan goobtii wax lagu tirinayay waxba lama tirinayo wixii la tirinay waxa lagu soo tiriyo goobihii codayntu ka dhaceen baa sanduuq walba lagu soo tiriyay halkan waxa la eegayaa foomka la yiraahdo D1/1 oo golaha deegaanka ah iyo D1/2 oo golaha wakiilada ah oo ku jira sanduuqa oo ay ku qoran yihiin tiradii musharax waliba wixii uu helay iyo tirada wadarta guud ee xisbiga markaa helay ay ku jiraan taasaa la soo saaraya saddex xisbi qaran oo jooga markaasaa loo xaadirinayaa qof waliba wixii loo qoranayaan xisaabtu computerkana waa la gelinayaa dabeetana waa la daabacayaa dabeetana saddex xisbiba waana shaabadaynayna way saxayaan marka waxa weeyaan waad ogeydeen xalay ba bilaabatay tijaabadii 7 saakay bilaabatay 12 iyo barkii baanu joojinay imika laga soo baxay 12 iyo 13 daqiiqadood la waxa weeyaan waxa la dhameeyay sanaaduuqdaasi waa maalinta u horeysa had iyo jeer waa taqaana saxaafadda khibrad baad u leedahay shaqada la bilaaba maalinta u horeysa waa gacan culus tahay oo qofkiina uu ku cusub yahay shaqadii marka dhinacna training buu kaga jiraa oo wad garan karaysaa la hore uu soo qaban shaqadan qof soo qabto waa naadir qofka ku jira 30% sanaaduuqdii Hargeysa degmada Hargeysa iyo wakiiladoodii iyo deegaankoodii intaba wixii ku jiray oo aanay raacsanayn Gabile oo aanay raacsanayn Salaxle oo aanay raacsanayn Ballegubadle oo intaasoo quro intii u faraha badnayda ayaa lagu jiray marka 30% baa la tiriyay habeen dambe waxaan rajaynaynaa in la laab noqoto waqtigiisa ama waxaan noo haran wax yar noqdaan ama ay dhameystiranto marka waxaan u sheegayaa shacabweynaha reer Soomaaliland yaanay ka degdegin caasimada goobahoodu aad bay u fara badan yihiin gobolka Maroodijeex waa 699 goobood buu noqonayaa ma aha wax ciyaara marka waa lagu jiraa shaqaduna si wanaagsan oo aan muran xisaabta dhexdooda lahayn oo kuma shaka wax muran la galay oo wax far ismuusa oo sanduuqii loo baahday in la isla eegay marka horeba uu kambaloni ka jiray ama aan wakiiladii komishanka doorashooyinka goobta joogay ayna foomamkan aanu sheegayna aanay soo saxiixin sida foomka D1/1 ama foomka D1/2 ayna saxiixin saxiixdu ka maqan yahay ayaa dib la noogu furaya ilaa ma waxa la furay 6 sanduuq meelahaas la furay mid qoro dhibaatay ma jiraan mid walba tiradii ay dusha kaga soo qorano saxa la tiriyay wax dhibana ma jiraan ilaa maantana waxa ma yaalaan si fiican ba hawsha loo wada degdeg baana u dhamaanaysa insha Allah taala waanu idin sheegi doonaa warka xigay insha Allah taala Guulad Maxamed Aadan Guulad Cunaabi MMTV Hargeysa Ismaaciil Yare oo ka tirsan mas'uuliyiinta xisbiga mucaaradka ah ee wadani u qaabilsan tirinta codadka komishanka doorashooyinka qaranka ayaa waxa uu ka warbixiyay halka ay marayso tirinta komishanka doorashooyinka ee golayaasha deegaanka ee gobolka Maroodijeex isagoo saxaafadda kula hadlay xarunta komishanka doorashooyinka ee gobolka Maroodijeex waxa uu yiri waad arkaysaan saacadu waxa weeyaan 12 iyo 13 daqiiqadood la imikaanu ka soo baxnay goobtii idinku had iyo jeer waxa tiraahdaan goobtii wax lagu tirinayay waxba lama tirinayo wixii la tirinay waxa lagu soo tiriyo goobihii codayntu ka dhaceen baa sanduuq walba lagu soo tiriyay halkan waxa la eegayaa foomka la yiraahdo D1/1 oo golaha deegaanka ah iyo D1/2 oo golaha wakiilada ah oo ku jira sanduuqa
oo ay ku qoran yihiin tiradii musharax waliba wixii uu helay iyo tirada wadarta guud ee xisbiguna markaa helay ay ku jiraan taasaa la soo saarayaa saddexda xisbi qaran oo jooga markaasaa loo xaadirinayaa qof waliba wixii loo qoranayaan xisaabtu kombiyuutarkana waa la gelinayaa dabeetana waa la daabacayaa dabeetana saddexda xisbiba waana shaabadaynayna way saxeexayaan marka waxa weeyaan waad ogeydeen xalay bay bilaabatay tijaabadii 7 saakay bilaabatay 12 koob iyo 10 iyo barkii baanu joojinay imika laga soo baxay 12 iyo 13 daqiiqadood la waxa weeyaan waxa la dhameeyay sanaaduuqdaasi waa maalinta u horeysa had iyo jeer waa taqaana saxaafadda khibrad baad u leedahay shaqada la bilaaba maalinta u horeysa waa gacan culus tahay oo qofkiina uu ku cusub yahay shaqadii marka dhinacna training buu kaga jiraa oo wad garan karaysaa la hore muu soo qaban shaqadan qof soo qabto waa naadir qofka ku jira 30% sanaaduuqdii hargeysa degmada hargeysa iyo wakiiladoodii iyo deegaankoodii intaba wixii ku jiray oo aanay raacsanayn Gabile oo aanay raacsanayn Salaxle oo aanay raacsanayn Ballegubadle oo intaasoo quro intii u faraha badnayda ayaa lagu jiray marka 30% baa la tiriyay habeen dambe waxaan rajaynaynaa in la laab noqoto waqtigiisa ama waxaan noo haran wax yar noqdaan ama ay dhameystiranto marka waxaan u sheegayaa shacabweynaha reer Soomaaliland yaanay ka degdegin caasimada goobahoodu aad bay u fara badan yihiin gobolka Maroodijeex waa 699 goobood buu noqonayaa maaha wax ciyaara marka waa lagu jiraa shaqaduna si wanaagsan oo aan muran xisaabta dhexdooda lahayn oo kuma shaka wax muran la galay oo wax far smooth ah oo sanduuqii loo baahday in la isla eegay marka horeba uu kambaloni ka jiray ama aan wakiiladii komishanka doorashooyinka goobta joogay ayna foomamkan aanu sheegayna aanay soo saxiixin sida foomka D1/1 ama foomka D1/2 ayna saxiixin saxiixdu ka maqan yahay ayaa dib la noogu furaya ilaa ma waxa la furay 6 sanduuq meelahaas la furay mid qoro dhibaatay ma jiraan mid walba tiradii ay dusha kaga soo qorano saxa la tiriyay wax dhibana ma jiraan ilaa maantana waxa ma yaalaan si fiican ba hawsha loo wada degdeg baana u dhamaanaysa insha Allah taala waanu idin sheegi doonaa warka xigay insha Allah taala Guulad Maxamed Aadan Guulad Cunaabi MMTV Hargeysa Ismaaciil Yaro oo ka tirsan mas'uuliyiinta xisbiga mucaaradka ah ee wadani u qaabilsan tirinta codadka komishanka doorashooyinka qaranka ayaa waxa uu ka warbixiyay halka ay marayso tirinta komishanka doorashooyinka ee golayaasha deegaanka ee gobolka Maroodijeex isagoo saxaafadda kula hadlay xarunta komishanka doorashooyinka ee gobolka Maroodijeex waxa uu yiri waad arkaysaan saacadu waxa weeyaan 12 iyo 13 daqiiqadood la imikaanu ka soo baxnay goobtii idinku had iyo jeer waxa tiraahdaan goobtii wax lagu tirinayay waxba lama tirinayo wixii la tirinay waxa lagu soo tiriyay goobihii codayntu ka dhaceen ba sanduuq walba lagu soo tiriyay halkan waxa la eegayaa foomka la yiraahdo D1/1 oo golaha deegaanka ah iyo D1/2 oo golaha wakiilada ah oo ku jira sanduuqa oo ay ku qoran yihiin tiradii musharax waliba wixii uu helay iyo tirada wadarta guud ee xisbiguna markaa helay ay ku jiraan taasaa la soo saarayaa saddexda xisbi qaran oo jooga markaasaa loo xaadirinayaa qof waliba wixii loo qoranayaan xisaabtu kombiyuutarkana waa la gelinayaa dabeetana waa la daabacayaa dabeetana saddexda xisbiba waana shaabadaynayna way saxeexayaan marka waxa weeyaan waad ogeydeen xalay bay bilaabatay tijaabadii 7 saakay bilaabatay 12 koob iyo 10 iyo barkii baanu joojinay imika laga soo baxay 12 iyo 13 daqiiqadood la waxa weeyaan waxa la dhameeyay sanaaduuqdaasi waa maalinta u horeysa had iyo jeer waa taqaana saxaafadda khibrad baad u leedahay shaqada la bilaaba maalinta u horeysa waa gacan culus tahay oo qofkiina uu ku cusub yahay shaqadii marka dhinacna training buu kaga jiraa oo wad garan karaysaa la hore muu soo qaban shaqadan qof soo qabto waa naadir qofka ku jira 30% sanaaduuqdii hargeysa degmada hargeysa iyo wakiiladoodii iyo deegaankoodii intaba wixii ku jiray oo aanay raacsanayn Gabile oo aanay raacsanayn Salaxle oo aanay raacsanayn Ballegubadle oo intaasoo quro intii u faraha badnayda ayaa lagu jiray marka 30% baa la tiriyay habeen dambe waxaan rajaynaynaa in la laab noqoto waqtigiisa ama waxaan noo haran wax yar noqdaan ama ay dhameystiranto marka waxaan u sheegayaa shacabweynaha reer Soomaaliland yaanay ka degdegin caasimada goobahoodu aad bay u fara badan yihiin gobolka Maroodijeex waa 699 goobood buu noqonayaa
maaha wax ciyaara marka waa lagu jiraa shaqaduna si wanaagsan oo aan muran axsaabta dhexdooda lahayn oon kuma shaka wax murana la galayn oo wax fari smooth ah oo sanduuqii loo baahday in la isla eegay marka horeba uu kambaloni ka jiray ama aan wakiiladii komishanka doorashooyinka goobta joogay ayna foomamkan aanu sheegayna aanay soo saxiixin sida foomka D1/1 ama foomka D1/2 aynay saxiixin saxiixeedu ka maqan yahay ayaa dib lanugu furaya ilaa ma waxa la furay 6 sanduuq meelahaas la furay mid quro dhibaatay ma jiraan mid walba tiradii ay dusha kaga soo qorano saxa la tiriyay wax dhibana ma jiraan ilaa maantana waxa ma yaalaan si fiican ba hawsha loo wada degdeg baana u dhamaanaysa insha Allah taala waanu idin sheegi doonaa warka xigay insha Allah taala waa tahay daawadaan intaas aanu kaga soo noqonay Ismaaciil Aadan Cismaan oo ka mid ah saraakiisha sare xisbiga wadani oo ka mid ahaa saraakiisha xisbiyada iyo guddiga doorashooyinka ee ku sugan xarunta lagu hubinayo sanaaduuqda codadka ee degmada Hargeysa ee gobolka Maroodi Jeex macluumaadkaasi uu inasiyay hadii intaas aanu kaga soo laabano bal markan waxa la isweydiinayaa su'aalo kala duwan oo ku saabsan isla arrimahaasi gobolka Maroodi Jeex waxa markan khadka si toos ah ugu jira Maxamed Cabdi Sheekh Ilig gudoomiyaha MMTV oo maalmahanba gooraha dambe ka soo warramay qaybo kamid ah magaalada Hargeysa isla macluumaadkaasina soo ururiyay waxaan weydiin doonaa bal ilaa iyo hadda gobolka Maroodi Jeex iyo waxa laga filan karo hubinta socota iyo halka ay wax marayaan baahinta tooska ayaan ku soo xili doonaa isagoo su'aashaasi iiga jawaabaya Maxamed cabdi kuwaad ma ku weydiiyo halkee bay maraysaa tirinta codka Hargeysa oo sida Ismaaciil Rabo uu sheegay hadda la hubintiisana ay socoto warbaahin badan ay ku sugan tahay goobta oo warkaasi ilaa iyo hadda sugaysa santahay tirinta codadka magaalada Hargeysa ilaa iyo haatan waxay maraysaa boqolkiiba 30 ilaa boqolkiiba 40 inta la tiriyay saaka ayaa la bilaabay tirinta codadku gobolada kala dib ay uga dhacday marka loo eego degmada Hargeysa oo tirada codadkeedu aad u fara badan yahay sidoo kale leh in ka badan 660 goobood oo dadku ay codkooda ka dhiibteen marka loo eego degmada Hargeysa la yiraahdana degmada Hargeysa waxa lagu xisaabtamayaa golaha deegaanka ee caasimadda Hargeysa iyo gobolka Maroodi Jeex guud ahaan marna waa degmada Hargeysa marna waa gobolka Maroodi Jeex marka la yiraahdo waxa ku jira magaalooyinka Gabiley Balay Gubadle iyo Salaxley oo ka baxsan magaalada Hargeysa oo iyagana golo deegaan oo gaar leh oo 9 xubnood iyo 12 xubnood kale leh oo degmooyinku sidee u kala yihiin A iyo sidee u kala yihiin B iyo sidee u kala yihiin C kale leh ay noqonayaan degmooyinku marka magaalada Hargeysa tirinta codadku way socotaa degmada Hargeysa goobaha ay dadku codkooda ka dhiibteen degmada Hargeysa waa 5 degmo sida ku qoran guddida doorashooyinka goobta lagu ururiyay hoolka weyn oo ay ugu horeeyaan degmada Maxamuud Haybe degmada Axmed Dhagax degmada Ibraahim Koodbuur degmada 26 Juun iyo degmada Gacan Libaax marka 5 degmo ay noqonayaan ugu waaweyn degmada ugu yar waxa codkooda ka dhiibanayay oo iska diiwaan galiyay 42,000 oo qof ayaa iska diiwaan galiyay degmada ugu badan waxa iska diiwaan galiyay 65,000 oo qof marka degmooyinka Hargeysa waxay u dhaxeeyaan tirahan 42,000 ilaa 65,000 bay u dhaxeeyaan tiradaasina waxay sheegaysaa inay Hargeysa tahay cod ka badan 200,000 oo qof ee degmahan inta ka codaynaysa ee codkooda ka dhiibanaysay marka laakiin lama garanayo tirahan inta u soo baxday ee codka dhiibatay laakiin tay iska diiwaan gelisay deegaamooyinku intaasi ayay noqonaysaa Hargeysa waa meesha sida ugu weyn ee la iskugu hayo waa meesha lagu kala baxayo waa meesha codka ugu badan ee gobolada Soomaaliland ee 6 uu yaalo waa meesha ay ku tartamayaan 3 xisbi ee kulmiye u ciidiyo wadani waa meesha ay doonayaan xildhibaanada ugu badan inay ka kala helaan waa meesha leh xildhibaanada ugu badan ee golo deegaan ee guud ahaanba Soomaaliland oo dhan waa meesha ay yaalaan 17 kursi oo golo deegaan ah sidoo kalena ay gobol ahaan Maroodi Jeex ay yaalaan 20 mudane oo golaha wakiilada ah marka waxay ka dhigan tahay inay magaalada Hargeysa tahay goobta loogu codka badan yahay ee tira ahaan
isla markaasina ay tahay meesha ugu badan ee lagu kala baxayo dadkuna ay ka dhursugayaan tirinteedana ay u fadhiyaan in ka badan 40 xubnood oo kala metelaya saddexda xisbi qaran ee u cid kulmiye iyo wadani taasina ay noqonayso in si xoog loogu mashquulsan yahay sanaadiiqda imanaysaana ay fara badan tahay goobaha ay ka imanayaana ay yihiin goobo muhiim ah codadka ay meesha yaalaana ay yihiin codad ugu tirada badan amaba ugu awooda badan leh marka Hargeysa tirinta ilaa imika la tiriyay natiijo lagama hordhici karo natiijo lama sii sheegi karo gudida doorashooyinku way ka digeen cidi guul ma sheegan karto cidi tirada ay haysato ma sheegan karto xisbina ma sheegan karo xildhibaanna ma sheegan karo mid guuleystayna ma sheegan karo mid hogaaminayana ma sheegan karo laakiin muhiimaddu waxa ay tahay in la dhameystiro tirada guud marka la dhameystiro ayay noqonaysaa in natiijada guud ee magaalada Hargeysa amaba degmada Hargeysa marka laga hadlayo Hargeysa inay degmo weeyaan degmo ahaan loo sheego kadibna ay ku tartamaan oo ay yeeshaan xildhibaanada kala duwan ee 17ka marka inta codaysayna ay noqon doonto golaha deegaanka ee caasimadda Hargeysa oo 17 mudane laga dhigay iyadoo ay ahayd sanadkii 2012 tirada xildhibaanada golaha deegaanku waxay ahaayeen 25 xubnood xeerka markii ay golaha wakiiladu bedeleen ayay dib uga saareen 8 xubnood waxaana laga dhigay 17 xubnood awoodihii xildhibaanka golaha deegaanka ee degmooyinka guud ee wadanka oo ka kooban 23 degmana waa la bedelay waxaana lagu bedelay in awoodihii laga yareeyay xubnaha tagaya golaha deegaanka oo halkii uu markii hore ka ahaa xildhibaan golaha deegaan imika laga dhigay xubin golaha deegaan awoodihii u lahaa ama sumcaddii iyo sharafkii u lahaana qaybaha qaar ay ka qaadeen xeerka oo golaha wakiiladu ay amendment ama isbedelkii ay ku sameeyeen xeerka ay taasi noqotay marka golaha deegaanka caasimadda Hargeysa waa sidaasi tirintina way socotaa Hargeysa codka ugu badan baa yaala codka ugu badan ee lagu tartamayo wali lama hubo ilaa caawa inuu soo bixi doono bari inuu noqon doono inuu habeen dambe noqon doono wali Hargeysa waa la isku jiraa madaxaana la iskula jiraa xisbi kastaana tiradiisu eeganaya walow aan ka araaranayo xisbiyadu inay leeyihiin situation rooms oo ay ku soo dhacayaan codadkii muraaqibiinta ay u dirteen goobaha codbixinta ay xisbiyadu muraaqibiintoodii natiijadii ay kala yimaadeen goobta ayuu xisbi walbaaba isagu ka qoranaya oo natiijadiisa si gaar ah ayuu haystaa inkastoo aanay natiijo wada dhameystiran ahayn laakiin haddana xisbiyadu marka gudahooga loo eego natiijada iyo saadaasha ay kala helayaan iyo awoodaha meelaha ku kala awood badan yihiin iyo goobaha looga kala codeeyay intaba way haystaan wadanka oo dhan marka laga eego gaar ahaan degmada Hargeysa oo codadka ugu badan ay yaalaan iyo 630 goobood in ka badan halkii gobolka Maroodi Jeex yaalaan 970 goobood oo codbixinood ay tahay marka doorashada imika laga hadlayo hordhaceedu waa golaha deegaanka ee caasimadda Hargeysa iyo degmada Hargeysa laakiin gobolka Maroodi Jeex wuxuu yeelan doonaa 20 xildhibaan oo baarlamaanka 20 kaasina ay noqon doonaan sida codka u kala heleen xildhibaanadu taasi ayaa waxay noqon doontaa marka fursadda meesha taala golaha wakiiladuna way dambeeyaan iyaga lama sheegay markaas iyaguna degmooyinka ay ku yaalaan ilaa hadda aan la shaacinin oo si weyn loo sugayo oo dadweynuhu dhagta ay u taagayaan kuweeba kamid ah kuweeba ilaa hadda la sugayaa oo aan wali la shaacinin degmooyinkee weeye gobolladeeba si ku yaalaan degmooyinka hadhsan ee ugu waaweyn waxaa ka mid ah magaalada Ceerigaabo oo iyadana cod badan uu yaalo xisbiyadu ay isku hirdiyayaan oo ah Ceerigaabo inay tahay degmo muhiim ah oo u muhiim ah asxaabta qaranka u muhiim ah tirada codka la kala helayo marka taas waa Ceerigaabo oo fursad badan halka ay ka jirto xisbiyadu sidee u kala guuleysan doonaan la eegi doono magaalada ugu muhiimsan ee ay ka codeeyeen in ka badan 130,000 oo qof oo ay codkana kala heleen saddexda xisbi kulmiye uu helay 12,000 oo cod u cid ay heshay 7,000 oo cod in ka badan wadanina uu helay 11,000 oo cod in ka badan taasi waa magaalada Laascaanood oo magaalo muhiim ah ahayd ayaa maanta iyada lagu kala baxay xildhibaanada laga kala helayna waxay noqotay inuu cid saddex ka helay shanna uu ka helay wadani shanna ay ka heleen kulmiye 13 gole deegaan ay leedahay marka magaalooyinka ugu muhiimsanaa ee xisbiyadu isku hayeen codadka badan yaaleen magaalada ugu weyn ee imika codka laga kala dhiibtay waa magaalada Laascaanood oo tiradeedu ay soo baxday magaalada Ceerigaabo sida aan sheegay wali lama shaacin magaalada Burco
oo iyaduna cod badan yaallo oo lahayd in ka badan 390 goobood oo codbixineed iyadana wali lama shaacin tirinteeda iyadana waa la isku jiraa tirintii baa wali socota tiro badan bay socotaa 30% 40% iyada lafteedu tirantu way socotaa magaalada burcana waa gobolka labaad ee ugu codka badan ee ku xiga gobolka Maroodi Jeex degmada labaad ee ugu codka badan iyaduna ee ku xigta degmada Hargeysa burco marka burco waxa weeyaan meel xisbiyadu ay madaxa iskula jiraan iyada lafteeda ay wax kala riixanayaan ay doodoodu ay tahay codadkooda ka heli doona waxa la isku eriyanayaa wax kala maaha golayaasha deegaankana in awoodda maayarnimada oo xisbi kastaaba uu helo ama awoodda tirada codka badan xildhibaanada soo baxaya marka ceerigaabo iyo burco ayaa gobolada bariga ilaa imika harsan magaalada Caynaba oo muhiim ah xisbiyada oo maanta aan wali lagu dhawaaqin gobolka Soolna ka tirsan oo loogu dhawaaqay Xudun iyo Taleex iyo Laascaanood baa laga dhawaaqay saddexda degmo loogu dhawaaqay gobolka Sool waxa dhiman magaalada Caynaba oo iyaduna muhiim ah cod badan inuu yaalo ka badan 220,000 oo cid hesha aynu eegi doono insha Allah magaalada kale muhiimka waxa weeyaan magaalada Berbera oo iyadu xudunta dhaqaalaha ee Soomaaliland ah magaalada Berbera iyada lafteeda warar baa soo baxay in la sheecin doono laakiin cidima shaacin cidina ma sheegin ilaa imika komishaneerka u fadhiya gudida doorashooyinka magaalada Berbera waxa uu sheegay inaan wax natiijo sheegin natiijadooduna ay wali dambayso saas darteed magaalada Berbera waxa yaala iyadana 13 mudane oo golo deegaan oo iyadana tiradii hore ay lahaayeen hoos looga dhigay oo xeerka guud ee wadanku uu hoos u dhigay iyadana magaalada Berberana waxay noqon doontaa marka meel iyada lafteedu xisbiyadu ay ku tartamayaan si xoogan ugu tartamayaan xildhibaanada u soo bixi doona golaha deegaankana la kala riixanayo tirada golaha baarlamaanka taale magaalada Berbera ama gobolka saaxil guud ahaan marka la yiraahdo waa 10 xubnood oo baarlamaanka ah tirada ay xisbiyadu kala helaan ayaa 10 xubnood ee golaha wakiilada noqonayaan ay ku kala heli doonaan halkii magaalada Burco yaalaan 15 mudane oo golaha wakiilada oo noqonaya guud ahaanba gobolka Togdheer oo ay ka mid noqon doonto degmada Oodweyne oo ay ku soo biiri doonto magaalada Burco halkii magaalada Ceerigaabo ay ka yaalaan 12 xubnood oo golaha baarlamaanka ah oo iyadu noqon doonto iyaduna gobolka Sanaag oo xildhibaano badanina iyadana ay qayb ka noqon doonaan marka taasi wax weeyaan saddexda gobol ee Sanaag iyo Togdheer iyo saaxil marka laga imaado gobolada bariga loo tago magaalada Boorame waa muhiim magaalo aad muhiim weeyaan degmooyinka laga dhawaaqay magaalada Boorame waxa kamid ah magaalada la yiraahdo Lughaya iyo magaalada Saylac oo iyagana la kala helay kuraasti waxa harsan magaalada la yiraahdo Baki oo ah degmo iyo magaalada Boorame oo iyaduna ah degmo oo aad moodo xisbiyadu iyada laftooda in si weyn loogu ololeeyay oo xisbiga ku guuleystay aynu eegi doono taasina ay tahay saddexda xisbi qaran iyo natiijada ka soo bixi doonta magaalada Boorame ay u muuqato haatan natiijadeedu inay dhowdahay oo ilaa Britoole lagu dhawaaqi doono iyo degmada Baki marka codadka gobolka Awdal 4 degmo ayuu leeyahay gobolka Awdal 4 degmo laba ayaa lagu dhawaaqay Saylac iyo Lughaya waxa dhiman Baki iyo Boorame dhiman labadaasana ugu muhiimsan meelaha dhiman ee la doonayo in lagu dhawaaqo natiijadooduna ay dhowdahay codad badanina uu yaalo codka saddexaad ee ugu badan guud ahaanba ayaa yaala wadanka sidoo kalena waxa yaala tirada saddexaad ee ugu badan golaha wakiilada gobolka Awdal marka la isku yiraahdo oo 13 xildhibaan ayaa iyagana yaalo oo golaha wakiilada noqonaya oo guud ahaanba gobolka Awdal iyaguna ka imanaya marka loo eego meelihii muhiimka ahaa ee codka badani uu yaalay ee xisbiyadu ku kala helayeen ee natiijada go'aaminaysay ilaa hadda lama taaban goobaha degmooyinka la taabtay aad ayay u kooban yihiin degmooyinka hore waxa kamid ah Ceelaf Weyn waxa kamid ah Oodweyne waxa kamid ah Balligubadle degmooyinkaasi ayaa iyaguna ah degmooyin muhiim ah gobolka Maroodi Jeex oo kale wali lama taaban degmada Gabiley waxay tahay iyaduna cod badan baa yaala 270,000 oo cod ka badan baa yaala golaha deegaankuna waa 12 xubnood golaha wakiilada waxay ku jirtaa gobolka Maroodi Jeex oo tirada codka ay soo raaci doontaa halka ay Balligubadle yaalaan 9 xubnood oo iyaduna soo raaci doonto gobolka Maroodi Jeex marka laga hadlayo tirada golaha wakiilada marka guud ahaanba golihii wakiilada ilaa hadda tiro rasmi ah oo laga dhawaaqay ma jirto tiro laga soo saaray kuma jirto 82 mudane sidii bay u laalan yihiin xisbiyadu siday u kala helaana waynu ogaan doonaa laakiin natiijada golayaasha deegaanka ayaa lagu dhawaaqay waa tahay Maxamed marka waxa la isweydiin karaa ilaa hadda golo deegaan baa laga sheekeynayaa degmooyinkii baa lagu dhawaaqayaa
dad badani waxay u dhegtaagayaan goorma golaha wakiilada la bilaabaya mudanayaasha sida aadka loo sugayo kuraasta cidda kala heshay xisbiyadu siday kala yeeleen dabcan waa kuraasta golaha wakiilada oo xisbiyaduna si aad ay u daneynayaan goorma la filayaa in lagu dhawaaqo golaha wakiilada natiijada golaha wakiilada ee Somaliland waa meesha ugu adag xildhibaanadu ay isku hirdiyi doonaan golihii wakiilada horena meeshu ka baxaya 82 mudane oo la soo doortay 15kii bishii 9aad ee 2005 ayaa maanta golaha wakiilada banaanka ka tagaya oo fadhiisanaya waxaana bedeli doona 82 mudane oo cusub 82 mudane cusub ee bedelaya ee shaqadaasi imika qaban doona waxay ka kala imanayaan saddex xisbi qaran ee uciid kulmiye iyo wadani halka 82 imika fadhiya ay hore uga kala yimaadeen uciid kulmiye iyo udub oo meesha ka baxay runta marka laga hadlo golaha wakiilada asxaabta mucaaradka ah tirada ay ka helaan iyo xisbiga muxaafidka ama xukuumiga ee kulmiye tiradu helo ayaa la isku eegi doonaa aqlabiyada mucaaradka golaha uu noqdo ama aqlabiyada muxaafidka uu golaha wakiiladu noqon doono laakiin imika wali waxa laalan tirada lagu dhawaaqayo iyo natiijada lagu dhawaaqayo walow natiijooyinka saxda ee xildhibaanadu ay kala haystaan intooda badan aanay og yihiin xaaladda aanay og yihiin xisbiyadu xaaladda ay imika ku sugan yihiin xildhibaan walbaana uu og yahay xaaladda iyo codka uu haysto muraaqibiinta xisbiyadu dirsadeen ee goobta u joogayna ay xaruntooda xisbiga u gudbiyeen natiijada ay haystaan balse xisbiyaduna ay leeyihiin system computer ah oo ay ku ogaadaan oo ay ku ururiyaan natiijada iyo kaydkooga taasina ay tahay qayb ka mid ah shaqada ay qabanayaan xisbiyadu ee ay ku ogaanayaan natiijadooda sidaasi darteed golaha wakiiladu ilaa iyo imika wuu laalan yahay waxaana ka soo horeyn doona natiijooyinka degmooyinka waxa loo yeeray golaha wakiilada heer gobol halka looga yeedhinayay imika degmooyinka heer degmo waayo 23 degmo doorasho ayaa Somaliland ka jira 23 degmo doorasho waxay ka jiraan 6 gobol ee Somaliland 23 degmo doorasho la isku daray iyo 6 gobol oo la isku daray ayaa waxa ka soo bixi doona 82 xildhibaan ee baarlamaanka noqon doona ama golaha wakiilada noqon doona marka gobol baa loo sheegay golaha wakiilada halka golaha deegaanka loo sheegayo degmo oo degmooyinku ay ka kooban yihiin waxaana meesha iman doona oo tartamay in ka badan 700 oo xubnood oo golaha wakiilada iyo golaha deegaanka u kala tartamay taasina waxay noqon doontaa marka inay soo baxaan 30% boqolkiiba dhowr iyo 60 ay meesha ka baxaan oo ay noqdaan xildhibaano meesha ka bixi doona sababtoo ah waxaa la doonayaa in ay soo baxaan boqolkiiba 33 markay ugu badan tahay amaba xisbi kaliya xisbigu inta ku guuleysan karo ay intaasi tahay xisbi kastana uu sharaxan yahay 200 iyo wax la jira marka tiraasina ay tahay tirada guud ee laga doonayo golaha deegaanka iyo golaha baarlamaanka balse gudoomiyaha gudida doorashooyinka oo hadlay waxay inta badan ka digayaan natiijo hordhac waxay ka digayaan inay warbaahintu majara habaabiso waxay ka digayaan inay dadweynuhu malaawaal sameeyaan waxay ka digayaan inay xildhibaanadu sameeyaan xildhibaanadu sameeyaan inay xildhibaanadu sameeyaan inay sii sheegaan natiijo aan loo baahnayn xildhibaanada tartanka sameynaya iyo inay warbaahinta mariyaan hadallo aan loo baahnayn sidoo sharciga iyo xeerku dhigayo iyo xeerka anshaxuna arrintaasi aad buu adkeeyay saas darteed ilaa imika ma jirto wax natiijo oo rasmi oo ka soo baxay goobaha kale marka laga tago goobaha ay gudida doorashooyinku ay ku dhawaaqeen ama natiijadoodu ay ka soo dhamaatay waxaana la filayaa imika waxa lagu dhawaaqay in ay tahay degmooyinka golayaasha deegaanka ilaa iyo 8 degmo inay tahay imika marka ay dhiman tahay lagu dhawaaqay 7 degmo ay dhiman tahay 16 degmo degmooyinkaasina ay yihiin degmooyinka ugu muhiimsan ee Ceerigaabo burco caynabo berbera sheekh hargeysa gabiley boorama intaasoo dhamay yihiin goobaha harsan maxamed ma la isweydiin karaa dadkii isdiiwaangeliyey ee loo diyaariyey inay noqdaan codbixiyayaashu waxay ahaayeen in ka badan 1 milyan oo ruux dadka codeeye ma la odhan karaa tiradii ugu badnayd baa soo baxday sida uu sheegay gudoomiyaha guddiga doorashooyinkuba maxaynu ka ognahay arrintaasi mise waxa la odhan karaa hoos dhac weyn ayaa jira oo dad badan ayaan codbixinta ka qayb qaadan oo marka hore diyaar u ahaa oo isu diiwaangeliyey arrintaa maxaynu ka ognahay
marka dadweynaha istiwaangeliyey Somaliland tirada guud ee istiwaangelisay waa 1,200,000 in ku siman 1,200,000 dadka ku siman waxa jira inaanay sidii loo baahnaa ugu soo wada bixin sida wararka xogogaalkeena MMTV aan helayno inaanay ugu soo wada bixin tirada codka dhiibatay aanay sida ay isku diiwaangeliyeen aanay u badnayn oo ay meelaha qaar yimaadeen sida uu injineer Faysal Cali Waraabe gudoomiyaha xisbiga cud u sheegay MMTV maanta tiradii xoog loo filayay inay codeeyaan inaanay imanin sidaas darteed sababihi ay u iman waayeen la doonayo inay ogaadaan oo aanay cidina ka sii hordhici doonin gudida doorashooyinkana aanay ilaa ay hadda sheegin laakiin tirada istiwaangelisay iyo tirada soo baxday inay xoog u kala badan yihiin marka maxaa keenaya su'aalahaasi ayaa noqon doona su'aalo u baahan in laga jawaabo oo warbaahintuna insha Allah ay qayb ka noqon doonto qaabka loo bandhigayo laakiin tiradii loo baahnaa inaanay xoog u iman oo laakiin ay tahay tirada codka dhiibatay Somaliland marka loo eego tiradii ugu badnayd ee cod dhiibata tan iyo sanadkii 2002 oo muddo 20 sanadood ah ay Somaliland soo waday hanaanka qof iyo cod laakiin ay yihiin maanta dadkii ugu badnaa doorashadan ay tahay doorashadii ugu horeysay ee laba doorasho oo isasidkan oo isku lamaan oo deegaan iyo baarlamaan hal mar la wada qabto tirada ugu badanina ay timid diiwaangelinta ugu badanina ay ka dhacday goobaha ugu badan ee cod bixinoodna ay yeesheen oo 2700 oo goobood in ka badan laga diiwaangeliyo wadanka 720 degmana ay maaragtay ay ka dhacaysay doorashadu marka nuxurku waxa weeyaan tirada dadku miyay u soo baxeen sidii hore haddii ay tirada istiwaangelisay soo baxaan codka qiimihiisu waxa uu ku fadhiyi doonaa xildhibaan walba cod badan oo 10,000 iyo wax la jira ka badan gobolada qaar halka gobolada qaarna uu ku dhadhawaan doono intaasi laakiin haddii ay tirada soo baxday hoos u dhacdo tirada xildhibaanku uu ku soo baxayo ee uu ku noqonayo xildhibaanna hoos bay u sii dhacaysaa inkastoo ay danaynayaan xildhibaanadu inaanay tiradu xoog badan sababtoo ah badnida xoogii waxay keeni doontaa inay xildhibaanadu xoog u kala bataan ama kursigu uu ku tago qiimo qaaliya taasina ay noqon doonto culays saaran xildhibaano keenay darajo wanaagsan iyo xildhibaano keenay inay xoog bataan oo xoog loo kala badan doono laakiin nuxurku waxa uu yahay tirada guud ee xisbiga uu ka helo ee gobolada baarlamaanka marka laga hadlayo tirada guud ee xisbiga uu ka helay gobolada ayaa waxay ku loogu qaybin doonaa saamiga kuraasta yaala gobolka tusaale ahaan haddii ay Hargeysa yaalaan 20,000 kursi haddii ay yaalaan 200,000 oo qofna ay ka codaysay xildhibaanka kursigiisu wuxuu ku kacayaa inuu noqdo 20,000 oo cod marka wax loo qaybin doonaa tirada kuraasta ee uu ka helay xisbigaasi ama tirada guud ee codka ka helay haddii uu 100,000 helo hadduu 50,000 helo tiradu ka helayaan halkaasi ayay ka soo baxaysaa marka tirada guud ee dadka soo baxday waxa la filayaa inay dad badan noqdaan laakiin sidii ay isku diiwaangeliyeen inaanay ilaa iyo imika ahayn dad badan baa sababaha isku iyagoo isdiiwaangeliyay maadaama dadku lugeynayeen culaysyada dhacay ay ka mid tahay tusaale ahaan qof iska diiwaangeliyay 10 kilomitir jirta ama 5 kilomitir jirta ayaa goobtii iska diiwaangeliyay maalintii doonay inuu ka soo codeeyo waxa laga yaabaa goobihii in la kala jajabiyay oo goobtii qofku markii hore iska diiwaangeliyay ee uu diiwaangelinta ka qaatay in 4 meelood ama 5 meelood loo kala jabiyay taasina ay noqonayso kala jabintaasi culays inuu qofkii goobtii uu tagay iska waayo ama waqti badan isagoo ku jiray oo meel kala tago marka waxyaabahaasi xagga dambe lagu ogaan doonaa markay waxyaabahan dhamaadaan laakiin dad badan baa isdiiwaangeliyay doorashaduna muhiim bay dadka u ahayd dadkuna inay xiiseynayaan oo ay doonayaan inay dadka ku soo doortaan karti leh oo aqoon leh oo fahan leh oo leh waxqabad oo dadku ay ka daaleen inay cid doortaan haddana waxqabadkii ay u doorteen uu aad iyo aad u hooseeyo taasi culays uu ku yahay dadka ayaa muuqata iyo inay dadku ku codeynayaan inta badan meelaha qaar ama gobolada qaar rabitaankooda shakhsiga ah ee aanay ku codeynaynin rabitaankooda deegaan ahaan goobaha ay ka soo jeedaan taasina ay ka dhacday gobolada qaar ka mid ah oo guud ahaanba 6 gobol ka mid ah sidoo kale dadka is soo sharaxay ee golayaasha deegaanka kale isku sharaxay ama golaha wakiilada isku soo sharaxay dad badan baa dad aqoon la ah oo dhalinyar ah
oo dadka qaar sida gobolka awdal oo kale dhalinyarada isku sharaxday golaha deegaanka qaar badan oo kamid ah ayaa PhD ahaa awal horena may dhici jirin in ay dadka aqoonta leh ay imaadaan golayaasha deegaanka marka taasi waxay ku tusaysaa dadku inay u baahan yihiin isbedel inay u baahan yihiin waxqabad inay u baahan yihiin horumar inay u baahan yihiin fahan inay u baahan yihiin cid hogaamisa oo aqoon leh inay dadkii aqoonta leh ku dhiiradeen inay galaan siyaasadda iyo inay galaan deegaanka iyo inay galaan golaha wakiiladana waxay tahay astaan fiican oo muujinaysa inay dadku doonayaan horumar iyo xagga loo socdo laakiin aynu ka eegi doono isbedelka cidda guulaysatay soo baxda waa maasanta Cabdishakuur kaasi waxa uu ahaa maxamed cabdi sheekh ili gudoomiyaha MMTV oo ka soo waramayay qaybo kamid ah magaalada Hargeysa oo markaasi uu diyaar ku ahaa macluumaadkaasi inuu soo gudbiyo daawadayaal haddaan dib idin xasuusiyo halka ay wax marayaan waxaa ugu dambeysay degmada Sheekha gobolka Saaxil oo la shaaciyay natiijada horudhaca ah sida xisbiyada ay u kala heleen saddex kamid ah waxaa helay xisbiga Ucid saddex kalena waxaa helay xisbiga Kulmiye saddex kalena waxaa helay xisbiga Wadani waxaana arintaasi ay ka dhigaysaa codadka ilaa iyo hadda amaba kuraasta ilaa iyo hadda uu helay xisbiga Kulmiye 42 kursi halka xisbiga Ucidna uu soo gaaray 18 kursi halka xisbiga Wadanina uu helay 29 kursi marka la eego sagaalkaasi degmo ee la shaaciyay kuraastooda sidaas ay xisbiyadu u kala heleen waxaa jiri doona degmooyin kale oo hor leh oo markaas ay ka soo bixi doonaan warar hor leh saacadaha soo socda ilaa beritoole goor hore waxa kale oo iyadana inoo soo socota arrin ku saabsan warbaahintu sida heeganka ugu jirto macluumaadka kala duwan ee ku saabsan saxaafadu sida markaas ay u soo gudbin lahayd oo meelo kala duwan markaas ay ku sugan yihiin hase yeeshee qadar yar kooban kadib waynu isku soo noqon doonaa
daawadayaal isu soo noqod wanaagsan markana waxaynu eegi doonaa macluumaadka ku saabsan wariyaasha ku sugan xarunta hubinta ee degmada Hargeysa gobolka Maroodijeex wariyaashu halkaasi maxay ku sugayaan maxay filayaan macluumaadka ay doonayaan waa kuwa nooceeya wariyaasha halkaasi ku sugan waxa hadaba warbixintan ka sameeyay Cabdirashiid Cali Barre wariyaha MMTV oo halkaasi tagay daqiiqadihii la soo dhaafay bal wixii uu la kulmay iyo dareenka wariyaasha aynu wada daawano halkan oo ah daawadayaal xarunta guud ee komishanka doorashooyinka ee gobolka Maroodijeex oo aanu hadda ku hor sugannahay wali waxa ka socda tirinta codadka ay dhiibteen dadweynaha ku dhaqan ama shacabka ku dhaqan degmada Maroodijeex iyo guud ahaan gobolkani halkan ayaa ah goobta ugu badan ee lagu tirinayo codadkii ay dhiibteen shacabka ku dhaqan gobolka Maroodijeex waana goobta ugu badan waxa ku jira mas'uuliyiin kala matalaya saddexda xisbi qaran oo iyagu tirsanaya hadba codadka ay ka helaan isla gobolkani Maroodijeex oo ah midka ugu badan ee codadka ugu badan ay ka dhiibteen shacabka Soomaaliland warbaahinta ayaa komishanka doorashooyinku ay uga digeen in aanay faafin waran aan ka soo bixin komishanka intaasi kadib warbaahinta ayaan halkan kula sheekaysanay iyaga oo heegan ugu jira hadba wararka ay ka helaan komishanka si ay u gaarsiiyaan shacabka Soomaaliland ee ka dhursugaya xildhibaanadii ay u codeeyeen 31 May ee doorashooyinka isku sidkana ee deegaanka iyo baarlamaanka Khadar Quule ayaa hadda ila jooga Khadar soo dhow cabdirashiid aad u maasan tahay waa xilli habeenimo ah walibana 10kii habeenimo ayay kor u dhaaftay waxaynu halkan u joognaa waxa weeyaan sidii aynu bulshada guud ahaanba reer Soomaaliland jamhuuriyadda Soomaaliland aynu u ogeysiin lahayn hadba xaaladda guud ee doorashooyinka Soomaaliland iyo natiijada ay sugayaan sida komishanka doorashooyinka Soomaaliland ay ugu dhawaaqayaan run ahaantii ilaa waqti xaadirkan wax rasmi ah wali kama soo bixin komishanka doorashooyinka qaranka Soomaaliland halkan oo inaga dambayso oo xarunta komishanka doorashooyinka gobolka Maroodijeex waxarunta ugu ballaaran Cabdirashiidow ee gobolka Maroodijeex ee ay ku soo xaroodeen codadka gobolka Maroodijeex degmooyinka ku hareeraysan iyadoo ilaa imka la sugayo degmada Gabiley oo aan waliga halkan iman say mas'uuliyiinta komishanku ay sheegeen sidoo kale ka saxaafad ahaan xilliga waxaan ka taaganahay waxa weeyaan sidii dadweynaha ayna daawanaya aynu dhacdooyinka dhinaca doorashooyinka ku saabsan aynu soo gudbin lahayn isla markaasna bulshadu inoo ogaan lahayd in ay wararkii natiijada hordhaca ku dhawaaqista ay sugayaan ay bulshadu heli lahayd taasina waa tan xilliga halkaas xogaha gudaha ilaa hadda laga helayo intii aad joogtay Khadarow maxay bulshada u sheegeen xogaha gudaha Cabdirashiid laga helayo waxa kamid ah in deegaamo kala duwan oo degmooyinka jamhuuriyadda Soomaaliland lagu dhawaaqay ay xisbiyada qaar ku kala horeeyaan halka qaarna la shaaciyay oo ay maanta komishanka doorashooyinku degmooyinka dalku ay sheegeen in doorashooyinkii ka dhacay dalka jamhuuriyadda Soomaaliland qaar kamid ah degmooyinkiisa lagu dhawaaqay taasi horta ugu muhiimsan laakiin se taa dadku aad u sugayaan waxay aad u dhagtaarayaan gobolka Maroodijeex iyo guud ahaanba kuraasta kala duwan ee caasimadda iyo golaha baarlamaanka si lagu kala horeeyo oo dadku aad ugu dhagtaagayaan ta ugu ballaaran ee waqti xaadirkan dadku ay sugayaan Cabdirashiid wataasi sidaynu la wada socono degmada Hargeysa waa midda ugu badan ama codadka ugu badan ay dhiibteen ama ma nidhaahde doorashooyinka ka dhacay guud ahaan Soomaaliland tirintu ilaa hadda halkii maraysaa baan oran karnaa maadaama aynu ku sugannahay afaafka hore xoga kala duwan ayna soo gaariyaan Cabdirashiid goor dhaweyd oo halkan aan joogay mas'uuliyiin kamid ah komishanka oo halkan dibadda aan u waran waxay noo sheegeen in 690 sanduuq ay halkan yaalaan isla markaasna ay 60 sanduuq oo kaliya ay tiriyeen 60 kan sanduuq waxay noqon kartaa oo ay codad aad u badan ku jiraan marka leenahay 60 sanduuq ma yara laakiin codad aad u badan ba ku jira oo la hubinaya sidoo kale waxay noo sheegeen in marka mas'uuliyiinta komishanka doorashooyinku in murashaxiinta lambaranta la siiyo kale ama tirada lambarka murashax kasta ku leeyahay sanduuqiisa hadii uu qaldamo ama hadii cilad laga dareemo in sanduuqaasi ay soo tiriyeen ardaydii jaamacadaha ee goobaha kala duwan ku sugnaa in dib lagu noqonayo isla markaasna xaruntan oo ah xarunta komishanka gobolka dib loogu furayo si natiijada dib loogu ogaado Cabdirashiid magacaygu waa Khalid waxaan ka mid ahay wariyaasha imka doonayay halkan wartiminta ka sameeyaan waxaan ku sugannahay afaafka hore ee komishanka doorashooyinka komishanka doorashooyinku in badan buu ka cawday in wararka aan iyaga ka soo bixin aan la baahin marka si aynu bulshada warar sax ah oo xaqiiqo ugu baahin ayaynu halkan u joognaa imika ay tahay 11 habeenimo marka waxaynu rajaynaynaa in dadka aynu u gudbino warar sax ah oo xaqiiqa oo kuwa komishanka ka soo baxay marka halkan sidaas aynu joognaa walaal waa goor dambe
xogaha ilaa hadda aad adigu hayso bal haddii dadka la wadaago hawlaal xoguhu way iska soo daba dhacayaan komishankuna war saxa weli inooma sheegin laakiin xogta aynu helayno ee si off record ama aan la duubin aynu ku helayna waxay sheegayaan in weli codadka intoodii badnaa aan la tirinin marka maalmaha soo socda ayaa la filayaa in komishanku uu si rasmi ugu dhawaaqo innaguna waxaanu dhowraynaa wararka komishanka ka soo baxaya oo aynu bulshada si toos ugu tabin doono insha Allah cabdirashiid cali bare iyo MMTV walaal aad buu mahadsantiin saacadu hadda waxa weeyaan waa 12 iyo 12 minid waxa halkan ku sugan saxafiyiin fara badan oo anigu aan ka mid ahay runtiina dabcan halkan waxaanu joognaa sidii bulshada Soomaaliland aanu gaarsiin lahayn warar salkooda ku saleysan yahay xaqiiqo guddiga doorashooyinka waxa ilaa intii 13 bishii May ay doorashadu dhacday 2 cisho ka joogno ay ku soo celcelinayeen in warbaahintu ay warar xaqiiqo ay soo gudbiyaan oo waliba ay ka soo xiganayaan guddiga doorashooyinka waana xilligan runtii aan halkan u joogno doorashadana cabdirashiid doctor doorashooyinka hore Soomaaliland ka dhici jiray ka duwan tahay waa doorasho isku lamaan oo isku sidkan oo wakiiladii deegaanka markii ugu horeysay Soomaaliland laga qabto marka xajmigeeda iyo culeyskeeda ay leedahay warbaahintan runtii aad baan ugu mahadnaqayaa in xilliga qof kasta uu joogo sidii bulshadiisa u gaarsiin lahaa warar xaqiiqa diiniyana xitaa diinteena islaamka baa inaga reebisay in bulshadeena ay u gudbino warar aan garanaysaa aan ku saleysan xaqiiqada oo akhiradeena aan xitaa u fiicnayn marka hadda halkan ku suganahay waa xaruntii komishanka gobolka waana meesha codadka ugu badan ee Soomaaliland marka laga hadlayo degmooyinka laga hadlayo gobolka Maroodijeex iyo degmada Hargeysa ay ku soo xaroodeen waana inta ugu badan meelaha ugu xiisaha badan ee dadku u dhagtaagayaan ee lala wada socdo iyo degmooyin kale fara badan oo Soomaaliland ka tirsan oo ilaa hadda aan lagu dhawaaqin natiijadooda ay Hargeysa Maroodijeexna ka mid yihiin Cabdiraxmaan degmooyinka wali aan soo gaarin ku hareeraysan gobol degmada Maroodijeex amba gobolka Maroodijeex aan iraahday kuwii baa ka mid ah dadka u sheegi kara cabdirashiid warta inta badan komishanka waxay sheegayaan in sanaaduqda ugu faraha badneed waliba xogaan helayna sheegayaan in sanaaduqda ugu faraha badneed ay deegaanada hoos yimaado gobolka Maroodijeex iyo degmada Hargeysa ay ku soo xaroodeen waxa haray sida la sheegay gobol degmada Balgubadle taasna codadkeeda inay yimaadeen ma jeclahay laakiin marka hore waxa la inoo sheegay inay maqan yihiin marka waxaan ku rajaynayaa dhamaantood bay wada yimaadeen codka maadaama uu socdo la tirinayo taamicineed waxay la mid tahay in ay soo wada xaroodeen sanaaduqdii bulshada gobolka Maroodijeex iyo degmada Hargeysa ay ku wada codeeyeen aad baan mahadsantahay bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin ilaahay baa mahad leh subxaanahu wa ta'aala waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa ilaahay subxaanahu wa ta'aala in siiyay nabadgelyada iyo doorashada labada gole ee inoo qabsoontay sida nabadgelyada inoogu qabsoontay baan ilaahay ugu mahad celinaynaa waxa kale oo mahad celinaynaa dhammaan howlwadeenada ay ugu horeeyaan maxaan ku radaa komishanka doorashooyinka qaranka oo si wanaagsan maxaan ku radaa hawsha si habsami u socota ilaa hadda aad iyo aad baan iyagana ugu mahad celinayaa sida ciidamada qaranka guud ahaan dhammaantood booliiska iyo militariga iyo asluubta iyo dhammaan ciidamada ku hawlan iyaguna sida nabadgelyada iyo maxaan ku radaa maanta ay hawshan u socoto waxaan leenahay dhammaantiin ilaahay idinka abaal mariyo waxa kale oo u mahad celinaya dadweynaha reer Soomaaliland oo iyaguna aan oran karo waxay bixiyeen 10 aad iyo aad u qiimo badan iyagoo maaragtay dadweynaha tusay in ay wadankan yahay wadan nabdoon oo maaragtay dadkana ay yihiin dad aad isugu kalsoon oo ilaahay subxaanahu wa ta'aala tala saartay aad iyo aad baan iyagana ugu mahad celinaya dhammaan iyagoo wada booliis ahaa oo ilaalinaya qarannimada iyo maxaan ku dhahdaa nabadgelyada aad iyo aad baan dadweynahan ugu mahad celinaya waxaan filaabo wax weyn insha Allah kulli waxa hadda soo baxay natiijadii hordhac ahayd ee degmooyinka dhowr degmo ayaa soo baxay waan ku faraxsanahay runtii waxa kale oo aan filaynaa iyadana in maaragtay ay komishanka doorashooyinka qaranku ay ku dhawaaqi doonaan fayskii labaad insha Allah iyagana aad iyo aad baan ugu rajo weynahay way socotaa si wanaagsan bay u socotaa si kalsooni leh bay u socotaa wax kala shakisan ma jiraan waxaan halkaa ka dareemayaa inay arrintani tahay arrin fair ah oo maaragtay si cadaalad u socota ama kalsooni badan ay ka muuqato sida xisbiyada qaranka oo iyagana maaragtay aad iyo aad ugu mahad celinayo oo si kalsooni leh isku duubni leh hawshaas ay u socoto marka guud ahaan ilaahay baynu mahad celinaynaa wixii maaragtay aynu sugnaabo wax weyn insha Allah maaragtay wixii natiijada u dambeeyay sugayna insha Allah aad iyo aad ba mahadsantiin waa tahay cabdirashiidow aad baad u mahadsan tahay dabcan xilligan saacadu waa 12 iyo daqiiqado hadda halkaan taagan waxa weeyaan afaafkii hore ee komishanka dabcan wali wax natiijo ma soo bixin laakiin warbaahintii
cidi umay kala hadhin dhammaantoodna waxay sugayaan bal waxyaalaha ka soo bixi doona komishanka inkastoo aan la rajaynayn in natiija ay soo baxday sida ay sheegayeen xubnaha xisbiga mucaaradku iyo weliba komishankuba waxyaalaha laakiin hadda annaga warbaahin ahaanna quseeya waxaa ka mid a maadaama dadkii aanu mas-uuliyaddeedii qaadnay inaan dadka wax u gudbinno wariyaashii madaxa bannaana iyo weliba tviyadii madaxa bannaana iyo kuwii dowladdaba in wararka barobagandada ah aanu xiliyadan oo kale haddii aanu nahay wariyayaal inaanu mas-uuliyad iska saarno maadaama warka keliyaata ee qaldamaa uu ilbiriqsiyo ku gudbi karo sidii maantaba dhacday in natiijooyinka qaar la qalday kadibna mar dambe raalgelin laga bixiyo la saxay tviyada qaar baa ilaa imika cabdirashiidow heegan ugu jira oo ay ka mid yihiin tvga MMTV oo maalmihii ugu dambeeyeyba doorashada si weyn u tabinayay oo runtii iyagaan si gaara ugu hambaleynayo dabcan warbaahinta kale umay kala hadhin iyaguna way tabiyeen warbaahinta saaxiibada ayaa waxaan ku adkaynayaa maalimahan oo kale waa inaanu komishanka doorashooyinka la shaqayno haddana inagu la shaqayn dadkii way jahwareerayaan dadku ciday aaminaan ma garanayaan aad cabdirashiidow mahadsan tahay idinkuna aad mahadsantihiin weli waxa socda tirinta codadka gobolka Maroodijeex wararka ka soo kordha waxa aad kala socon doontaan si live telefishinka MMTV oo u heelan in shacabka Soomaaliland uu la socodsiyo hadba wararka ka soo kordha komishanka doorashooyinka ee Soomaaliland Cabdirashiid Cali Barre MMTV Hargeysa aad iyo aad buu mahadsan yahay daawadayaalkaasi waxa uu ahaa Cabdirashiid Cali Barre oo markaasi dareenkooda ka wareysanayay xubnaha saxufiyiinta ee ku sugan nawaaxiga goobta ay ka soconayso hubinta codadka gobolka Maroodijeex gaar ahaan degmada Hargeysa oo ilaa iyo goor horeba heegan ugu jiray inay ogaadaan sida wax u socdaan hadba wixii soo dhacana ay dadweynaha u soo gudbiyaan aad iyo aad buu mahadsan yahay saxufiyiintaasi kala duwan ee heeganka ugu jiray inay markaasi dadweynaha ay u hawlgalaan si ay u soo helaan xog lagu kalsoon yahay oo dadweynuhuna ay ku xisaabtami karaan si markaasi ay shacabku ula socdaan tallaabooyinka kala duwan ee la qaadayo iyo halka ay wax marayaan taasi oo sahlaysa in dadku ay isla gaari karaan macluumaadka warbaahintu had iyo jeer waxay isku xidhaa dadweynaha iyo sidoo kale mas'uuliyiinta xogta la jaarka ah ee gacanta ku haya macluumaadka ummaddu aadka u wada sugayso haddii ay tahay xisbiyada guddiga doorashooyinka iyo saraakiisha kale ee dowladda ee ku foogan amaba ku hawlan tabantaabinta iyo soo bandhigista tirooyinka doorashada si qof waliba uu ogaado codkii uu dhiibtay halka uu ku dambeeyay iyo musharaxii uu codeeyay inuu soo baxay iyo in kale waana arrinta ugu weyn ee dad badan ay u dhagtaagayaan war haddana soo gaadhayna waxa uu sheegayaa degmada Ceelaf Weyn in la shaaciyay kuraastii golaha deegaanka oo ka kooban 13 aan idhaahday 11 waxaana ay kala heleen xisbiga kulmiye ayaa waxaa halkaasi uu ka helay 5 kursi oo ka mid ah golaha deegaanka 3 kursina waxaa helay xisbiga mucaaradka ah ee wadani halka 3 kursi ee soo harayna uu markaasi helay xisbiga mucaaradka ah ee ucid waa degmada Ceelaf Weyn oo ka tirsan gobolka Sanaag oo aynu horena u daawanay degmada Garadag oo isla gobolkaasi ka tirsan oo xisbiyadu markaasi ay ku soo kala baxeen waxaana ugu dambaysa oo haddana soo gaadhay natiijadaasi hordhaca ah ee ka timi degmada Ceelaf Weyn oo markaasi muujinaysa xisbiga kulmiye halkaasi inuu 5 kursi ka helay labada xisbi ee mucaaradka ah ee wadani iyo ucidna ay ka heleen min 3 kursi sida ay tilmaamayaan xogaha hordhaca ah ee halkaasi naga soo gaadhaya waa degmadii tobnaad ee markaasi ay soo baxaan tirooyinka muujinaya kuraasta golaha deegaanka iyo sida ay u kala heleen 3 xisbi qaran ee sida weyn ugu tartamaya doorashooyinka ka dhacay Soomaaliland ee golayaasha wakiilada iyo deegaanka doorashooyinka golaha wakiilada loo galay iyo xildhibaanadii tartamayay ilaa iyo hadda lama gaadhin oo waxaa la shaacin doonaa maalmaha soo socda hase yeeshee hadda waxaa dhagahiina soo gaadhaya ee haatan la marayo degmadii tobnaad waa golayaasha deegaanka oo degmooyinka lagaga dhawaaqaya sida loo kala helay waxaana ugu dambeysay degmada Ceelaf Weyn oo daawadayaasha hadda nagu soo biiray aanu ku wargelinayno sidaasi in loo kala helay daawadayaal waxaa la socotaanba waa inay soo kordhaan degmooyinka oo ilaa iyo hadda ay harsan yihiin 13 degmo doorasho oo markaasi aad filaysaan inay ogaataan sida loo kala helay iyo kuraasta lagu soo baxay kuwa ay yihiin waxaa la filayaa saacadaha soo socda haddii aanay noqon inay noqon doonto berri toole iyo wixii ka dambeeyaba degmo in loo ogaado
oo degmooyinka ugu horeeya ee dhegta loo taagayna ay ka mid yihiin degmooyinka Belegubadle, Oodweyne, Caynaba iyo degmooyinka kale ee la midka ah oo iyaguna jidka ku soo jira sida macluumaadka horodhaca ah uu muujinayo. وتحي داوديال وباهنتا توسكا هاريمها doorashooyinka telefishinka MMTV macluumaadkaasina waxa uu idinka imanaya xarunta dhexe telefishinku ku leeyahay magaalada Hargeysa. waxa ugu dambeeyay warbixinahan idiin sii deynay caawa degmada Ceelaf Weyn oo noqotay degmada tobnaad ee markaasi la soo bandhigay golayaasha deegaanka ee guud ahaan Somaliland. waxaana tirada guud ay ka dhigaysaa in xisbiga kulmiye uu markaasi leeyahay 47 kursi oo golaha deegaanka ah 10 degmo ee ilaa iyo hadda la shaaciyay. sidoo kale xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa waxa isna kuraastiisa golaha deegaanku ay noqonayaan 32 kursi 10 degmo ee ilaa iyo hadda la shaaciyay kuraastooda, halka xisbiga mucaaradka ee u cidna uu isna ilaa iyo hadda helay 22 kursi oo golaha deegaanka 10 degmo ee ilaa iyo hadda ay shaaciyeen xubnaha komishanka doorashooyinka ee heer gobol iyo heer degmo. وتحي داود الباهنتاسي inoo soo taxnayd muddada dheer eenu kaga hadlina arrimaha doorashooyinka ee ku daawateen falanqaynta kala duwan ayaa waxay ku dhowdahay qaybtii gabagabada ee ugu dambeysay. wixii macluumaad ee soo kordhana waxa kala socon doontaan baraha bulshada akawnadaanu ku leenahay ee MMTV oo aad si toos ah ugala socon doontaan hadba wixii ka soo kordha macluumaadka ku gadaaman doorashooyinka Somaliland ee golayaasha wakiilada iyo deegaanka. haddii aanay hore ku dhaafin yaanay ku dhaafin hadda oo waa inaad ku xidhnaato qaybaha kala duwan ee baraha bulshada ee MMTV dhinaca Facebooka, Twitterka iyo sidoo kale YouTubeka iyo Instagramka oo dhammaantoodba macluumaad isku mid ah aad ka heli doonto si aad ugu taxnaato arrimaha doorashooyinka iyo halka kolba la isla marayo oo aanay ku dhaafin xogo muhiim ah. subscribe inaad ku qabato oo aad ku xidhnaato YouTubeka MMTV. sidoo kale haddii aad ku xidhnaato page-ka waxaad heli doontaa macluumaad kala duwan. tan iyo kulan dambe nabadgelyo.